الله ugaas barrow ugaas cali iyo nabaddoonada iyo dhalinyarada aqoon-yahanada ah dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaan sugan salaan saadaalinayso midnimada iyo wadajirka beelweynta garjanta gardheera Soomaali salaantii u mudneed saadirkeen oo amaanay suubanow nabigeena ina fari wanaageeda sidoo kale duco iyo ammaan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa daahfurka xisbiga xaq u dirirka ah oo ay beesha leedahay waxaan leeyahay waa waqtigii loo baahnaa ayuu ku soo aaday aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa hadduu alla idmo waxaan ku dardaarmayaa oo dhalinyartaan leeyahay garashadan iyo garaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey in dalka iyo dadkaba waxa isbedel ku keeni karo waxa waaye waa dhalinyaro waaye haddii dhalinyaradu maanta ay kacdo oo xuquuqda ka maqan oo maanta anagaan ognahay laga soo bilaabo Hirshabeelle gobolka Banaadir koonfur galbeed ilaa Jubbaland xuquuqaha ku maqan dadkii soo dhici lahaay ayaa maanta reerka u istaagay waxaan leeyahay inaad midnimadiina iyo wadajirkiina aad iyo aad u ilaalisaan waxa waaye waa idin kula dardaarmayaa waxaad fiirsataa taariikhda nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nabinimada loo doortay dadka xooggiisa garab istaagay waxay u badnaayeen boqolkiiba 80 ama 90 waxay u badnaayeen dhalinyaro u badnaayeen maantana waa dadka taariikhdooda maanta ay qoran tahay waay oo la yiraahdo radiyallahu anhum radiyallahu anhu la yiraahdo waay ayaga waayeelaa ma garab istaagin nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale dalkan aan deganahay oo dalka Soomaaliya ah markii laga soo reebo halgamiyaashii dagaalada adag ku jireen kadib waxa si samata bixiyay ururka dhalinyarada SYL soo dhalinyaro Soomaaliyeed isbedelkeen marka waxaan aaminsanahay dhalinyartu haday gacmaha isqabsato in ay isbedel keeni doonto Ilaahay idinkiis aad iyo aad ayaa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh